بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. waxaynu hore uga soo warannay taariikh ka mida ummaddii tataarka la odhan jiray ama mongolianiska, labadaba taariikhyahanadu aynu nidhi way ku magacaabaan. waxaynu soo sheegnay wakhtigii ay soo baxeen ilaa la soo gaadho 622 hijriyada. waxaynu soo tilmaamnay inay qabsadeen markaasi qaybo badan oo dunida ka mid ah. caalamulislaami waxaynu sheegnay dowladdii ballaadhnayd ee khawarzimiyiinta la odhan jiray, ee dowla alkhawarzimiya, inay tirtireen boqorkeedii hore firdhad inuu ugu dhintay jasiirad yar. inankii uu dhalee boqorkaayee marka labaad isku dayeyna isna firdhadkii inuu wadiga sind ka tallaabay oo uu xagga iyo indiya oo dowlad yaro islaamiya oo kale ka jirtay uu u gudubay. iyo jinkis khan ninkii la odhan jiray ee boqorka u ahaa bershiya oo diyaarsanaya bulshadii ama dadkii uu maamulayay. haddaynu maanta halkaa ka sii bilowno iyo magaalooyinkii waaweynaa ee waddankaasi khawaarzam ay lahayd oo la tirtiray. مثلا taarikhyahanadu waxay tilmaamaan magaalada marwa waa merv ayay yidhaahdaan marka afafkan reer galbeedka lagu qorayo. reer galbeedka historianskooda qaar ka mida waxay yidhahdaan waa magaaladii taariikhda u weynayd wakhtigaas. inkastoo aynu odhan karno malaa baqdaad kamay weynayn, haddana waxaynu soo tilmaamnay iyadoo qura 700 milyan dad gaadhay, 700 kun oo qof in lagu dilay. taarikhyahanada qaarkood waxay leeyihiin qaxoontiyadii iyo wixii dambe ku madhay 1 milyan oo kale gaadhayaan. waxaynu soo marnay nisaabuur af carabigana lagu qoro oo iyadana xawaali 1 milyan lagu dilay. waxaynu soo marnay carri dhan oo la tirtiray. 622 hijriyada haddaan ka bilaabo oo aan gebagabeeye qaybta yaree koowaad ee ka hadhay noloshii jinkis khan, waayo jinkis khan wuxuu dhintay 624 hijriyada. wakhtigaasi waxaa dib u soo noqday ninkii la odhan jiray jalaaladiin ibnu muxamed ibnu khawaarzim shaah, oo aynu nidhi wadiga sind buu ka tallaabay. ayaa wuxuu ogaaday in waxoogaa tataarka weeraradooda ay kala degeen. dabeetana webigii sind buu dib uga soo tallaabay, waxbuu urursaday. karmaan meesha la yidhaahdo oo koonfurta waddankan bakistan la yidhaahdo ah ayuu soo galay. wuxuu u yimi nin la odhan jiray sacdadiin ibnu dakla. sacdadiin waa ninkaynu nidhi khiyaasudiin bay wada dagaalamayeen oo iska soo horjeedeen, oo ah kan jalaaladiinkan walaalkii. sacdadiin ibnu dakla ayuu xilfi la samaystay isagoo ka soo horjeeda walaalkii. waxaan in badan sawirradan ka arki doontaan iyadoo dowlad xoog badani oo tataar la yidhahda ay dunida weerar ku tahay muslimiinta oo iyagu isku mashquula, laba isu haysta iyo mid oo iyagu kala dhammaan la. jalaaladiin wuxuu soo baxay iyadoo nimay walaalayiin oo khiyaasudiin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo sacdudiin ibnu dakla ay isdilayaan oo laba gruub oo yaryar yihiin. gruubkii walaalkii mooyaane gruubka kaleu ku biiray, isna dagaalku xagga ka soo galay. wuu soo socdeen, wuxuu qabsaday galbeedka eeraan. dabeetana waxoogaa ciidana markuu urursaday xaggu tataarka kaga duuli lahaa ayaa xawalkii siyaasiga, yacni weershow xagga siyaasadda ku saabsan baa ku dhacay baynu odhan karnaa siyaasiyiintii muslimiinta wakhtigaa noolay. halkuu tataarka iyo ummaddan iska celin lahaa soo duushay ayuu weerar wuxuu ku bilaabay khilaafadii cabbaasiga oo sii daciiftay oo aan naf badanba lahayn. xaggeeduu weerarka u qaaday. magaaladan basra la yidhahda ee ciraaq ku taalluu 2 bilood go'doon ku hayay. dabeetana xagga iyo baqdaad buu u dhaqaaqay. baqdaad
boqorkii markaa haysto aan mid fiican ahayn naasir lidiin illah ninkii la odhan jiray 47 sannadood buu xukunka hayay laakiin waaxid mufsida buu ahaa bay yidhaahdaan kaa dhankiisu u sii kacay boqorkaasi markuu maqlay dawlad khawaarzimiin ee markii hore ay col ahaayeen markuu maqlay waxoogaa ciidan oo isu soo urursaday iyo basro la go'doomiyey iyo xaggiisa loo socdo ayuu tataarka waraaq u dirtay uu leeyahay ninkaa ha layga soo gaadhoano waa khilaafadii dhammayd ee cabbaasiyiinta ee muslimka matalaysay oo rabta inay tataarka xilfi wadaag la yeelato si looga takhalluso jalaaladiin iyo waxoogaagan uu wato tataarku laakiin waxay iyagu mashquul ku ahaayeen dhul tiro badan bay muddo yar ku qabsadeen dhulkaas sidii ay u dejin lahaayeen dawladnimadooda ugu sugi lahaayeen bay mashquul ku ahaayeen marka way joojiyeen futuuxaadkii tirada badnaa ay sii wadeen looma soo jawaabin ninkii la odhan jiray jalaaladiin meelo baqdaad agagaarkeeda buu qabsaday dabeetana waqooyiga ciraaq buu u sii kacay faris dhulkii la odhan jiray buu qabsaday kor buu u sii socday faristu waa iiraan qaybteedan sare siiba kor buu uga sii socday waddankan yare hadda azerbaijan la yidhaahdo ayuu qabsaday dhanka galbeed buu uga sii socday azerbaijan markuu qabsaday waddankan ku xiga ee la yidhaahdo georgia waddankii la odhan jiray kurj ee luqa alcarabiya ay ku yidhaahdaan georgiyu haddana qabsaday waa ka sii socday wuxuu samaystay suldo waxoogaa leeg halkaa markuu marayo ayuu heshiis yar oo wakhti gaaban socday wuxuu la galay walaalkiisii khiyaasudiin la odhan jiray uu ninka kale ka taageeray dowlad waxoogaa iyabuu ka wintay markaa sanadkaa 622 ayaa waxaa geeriyooday khaliifadii dowla alcabaasiya maamulayay dowla alcabaasiya 137 bay soo bilaabantay markana 622 baa la maraya boqorkii markaa joogay oo naasir lidiin illah la yidhaahdo oo 47 sannadood xukumayay dowla alcabaasiya oo taariikhyahanadu ay yidhaahdaan wuxuu ahaa dadka siirada madowle dadka taariikhdiisu madowga tahay baa lagu tiriyaa marka laga warramayo khilaafooyinkii islaamiga nimankii xukunka soo maray 47 sanana wuu xukumayay taariikhdiisuna baal madow bay ku qorantay bay yidhaahdaan wakhtigaas u geeriyooday sanadka hijriyada ee 22 wuxuu iskaga gabagaboobay iyadoo tataarku wax duulimaad aanay soo qaadin laakiin muslimiintu dhexdooda ay isdildilayaan sanadkii 623 iyo 624 hijriyada markay uu soo bilaabmay waxa khilaafada islaamiga qabsaday nin marka taariikhyahanada muslimiintu ay aad u ammaanaan waa ninka la yidhaahdo al-dhaahir biamrillah al-dhaahir biamrillah waxay yidhaahdaan aabbihii cagsigiisu ahaa yacni nin aad u fiican oo aad loo ammaanu ahaa walidalik baa taariikhyahanka muslimkee weyne la yidhaahdo ibnu al-athiir oo ka mid a raggii axdaadtaasi ama dhacdooyinkaasi wakhtigaa la noola inkastoo isagu suquutu baqdaad horteed uu dhintay laakiin haddana taarikhyahanada ugu waaweyn ee wax ka qoray tataarku ka mid ahaa wakhtigii uu noolaa ayaa wuxuu leeyahay khaliifada muslimiinta muu qabanin cumar binulcabdilcasiis kadib nin la mida ninka kan ninka yidhaahdaa buu yidhi run buu sheegi karaa yacni aldaahir biamrillah wuxuu dhigayaa khaliifkii shanaad الخلفاء الأربعة مركز نكون مادنا خليفة الله أماني وين كدم بيه وعمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وقت يسيبوا لي إلى يلقى قاعدة يا وقت كان لحم بقول يلا بيا لواتك لقى قاعدة يو ووقت شاب بقول السندات كله دو شنتا بقول السندات بولي هاي نن أردق ما الظاهر بأمر الله ما قبل خلافة ضد كمسلمين تا taxation tira badan cashuur tira badan oo dulmi ahayd oo dadka laga qaadi jiray buu baabi'iyey maxaabis badan oo muslimiin oo siyaasiyiin u xidhan buu sii daayey dadkii fuqarada ahaa buu wax badan taageeray wax badan buu ka bedelay bay yidhaahdeen dowladnimadii laakiin waa sida uu sheegay ibnu athiir baa wuxuu lahaa wanaagga ninkan iyo bulshadan faasidka ay suma cuntamaanee u malayn maayo buu yidhi inuu wakhti badan sii hayn doono taariikhyahankaasaa qoraya sidiisii baanay noqoto wakhti badan muuse haynin 9 bilood kadibba
وقريودي الله نحرسته وقتي وحكومي nin waxtara buu ahaa laakiin 9 bilood oo quray ahayd waxa qabsaday ninka dambeeyay oo al-mustansir billah la yiraahdo 17 sanadood baan filayaa inuu xukunka hayay ilaa 640 laga gaadhayay jalaaladdiin qaybtiisii uu qabsaday ayuu fasaadka ka waday dhacdooyin badan oo isbedelay waqtiga ma jirto 624 kii markay taariikhdu maraysay yani taariikhyahanada muslimiintu inta badan sanad bay u qoraan tasalsulka taariikhiga bay ilaaliyaan 624 markay hijriyadu maraysay ayaa waxa dhintay boqorkii dawladdii weynayd ee Tataarka Temurjin la oran jiray ama se ku caan baxay ee magaca ah Genghis Khan taariikhyahanada qaarkood dhowr iyo 60 bay ku sheegaan qaarna ilaa 72 ayuu gaadhay cumrigiisu bay yiraahdaan noloshiisii ninkaasi wuxuu ku dhamaystay dil iyo gowrac iyo baabi'in wuxuu ka tagay dawlad u dhaxaysa min Kuuriya ilaa iyo Baghdad dacalkeeda Iran Bershiya dawlad u dhaxaysa yani waa dawlad ka kooban maxay Kuuriya ka soo bilow China ku xigsi Indochina oo dhan soo mar Pakistan Afghanistan Bershiya xagga sare u soo kac dawlad aad u ballaaran buu ka tagay waqtiga uu dhintay waa waqti malaha hadda laga joogo 808 sanadood meelaha yani imka waxaynu maraynaa taariikhda 1432 isna 624 kii buu dhintay yani 8 qarni ka hor waqti laga joogo kale dhimashadii ninkaasi uu dhintay waxay keensatay bay yiraahdaan inay dunidu yara degto xasisho markuu dhintay way aaseen xabaal iyo bumbuun isumay samaynin waa la qariyay ila الآن lama yaqaano xabaashiisa rasmiga ah meesha ay ku taalo taariikhdaasi laga bilaabo 624 kii waqtigu dhintay ilaa intii laga gaadhay 627 kii saddexdaas sanadood waxa la yiraahdaa waxay ahayd fatratu huduu waqti deganaanshiya oo aan isbedel badan dhicin marka la eegayo dhanka muslimiin marka la eegayo Tataarka iyo weeraradii ay hayeen laakiin xagga muslimiinta markaynu eegno fitankii iyaga dhexdooda yaalay sidii bay u karayeen dawladdii wadanka dhanka qabsatay ee madaxdii ka dhimatay ee waxoogaa khalkhalkii ku soo biiray may dhankeeda eegin ee ninba ninkii ay ishayeen xaggiyan joogay ayuu eegay dabeetana waxa dib u cusboonaaday jalaaludiinkii aynu sheegaynay iyo walaalkiisii kale qiyaasudiin labadaba waxa dhalay dawlad khawarizmiya ninkii haysan jiray iyaga murankoodii baa dib u bilaabmo dib ay u dagaalameen Iraq iyo Faris Persia ayaa dagaal cusub ka bilaabmeen dhanka muslimiinta wadankooda intii ugu dhaxaysay oo ah Sham iyo Masar iyo intaasi waa qalbi العالم الإسلامي bay ahaayeen oo qolana baray ka xigtay qolana galbeed bay ka xigtay qoladaasna iyaga is haysta oo dagaalkoodii ba tiro batay iyagoo inta cida xukunta waa reer qura وصلاح الدين الأيوبي بقر إلى ورنجرة مسلم كهاي قدس دبوا حرية وعدي وكتجي لكن إن ما دي سيبا الدولة دي أنت كلا قيب صدين هي وحي وصير لا يبقى يصرف في مركزية يوم ما دحيس كل شيء هي نوع حكى السعودة خلاق التراب بدن لحب غلية لحية لباتن هي مركز هاي أيا أيوبيين تدحدوا دي ستيل كيس كدي ليين متكمدة أيا بيت المقدس كي وحرية صلاح الدين ku abtirsanay mid kamida ba yiri qolo kristana nasaarada ay kan idinsiinaya bayt al-maqdis bisharta anna meel heblaysiya qolo heblayana ila cadaadiya qolo kale ay walaalayeen dib loo siiyay masiixiintii baa dib gacanta loogu galiyay bayt al-maqdis in la siiyo imaaraat sham ku yaala qaar kamida jalaaludiinki weerarkiisii uu iska sii waday Turkiga qayb kamida buu galay magaalo khalaat la yiraahdo ayuu go'doomin ku qaaday waa magaalo yar adag bay ahayd go'doomintii waxay keensatay muslimiintii ku jirtay xad la yiraahdo ayda iyo bisadaha la cunay markii dadkii gaajooday wax la liqan la waayay ay iyo bisadaha la cunay akhiiranna way isdiibtay uu qabsaday
markuu qabsadayna raggiina wuu laayay dumarkiina wuu adoonsaday caruurtiina wuu gatayba oo adoomuu ka dhigay hadda waa muslimiin dadku sidaa u galaya dad muslimiina tataarkiina dhinaciisa joogaan waliba tataarku dawladii aabihii bay rideeniyay isagaba nimankii wixii ku sameeyay xaqooda meegina kolba tuulo yaro muslimiin ama gobol yaro muslimiin joogto dhankoodu duulimaad u sii wada tataarka markaynu iyaga dib ugu noqonno odaygoodii wuu dhintay odaygu 4 wiil oo dhigi cabaab u dhalay oo la mid ah isaga laakiin labadii waaweynaa ayaa isqabtay Chachi ayay carabtu qoraan Joji na qoladan gaaleed baa qora Joji ninka la yiraahdo iyo walaalkiisii ku xigay ayaa isdilay markaas oo isqabsaday Jagati kan la yiraahdo Jagatigu waa luqadan imka luqal Jagatiya la yiraahdo meesha ay ka timi tataarkan muslimiinta hadda meelahan Yurubta qaar degan iyo Raashiya iyo waa luqada ay ku hadli jireen ee abtirsiintoodii hore ay ku xiran tahay Jagati oo inankii labaad dhaqanku wuxuu ahaan jiray inuu qabsado boqorka inankiisa ugu weynayo Jooxiya Jagati baa isa soo taagay Jooxiya Jagatiga isa soo taagay wuxuu yiri marnaba u hoggaansamay maayo kaasi inuu qabsado dhexdhexaadintii waxay noqotay in la yiraahdo ninka saddexaad qabsado ninka saddexaad waa Okotay nin la yiraahdo Okotay iyo Okotay ay carabtu qoraan qoladan qaadnaa Ogidiya ay qoraan qoladan reer galbeedku ninkaasi ayaa dawladnimadii oo wiilkii saddexaad ee odaygu dhalaya ayaa dawladnimadii gacanta loo galiyay dawladii markaa waxa bilaabantay dawlad cusub oo uu xukumo Ogaday ninka la yiraahdo Okotay markuu wadanka qabsaday wuxuu dib ugu noqday inuu dawladiisii dib u habeeyo inuu dejiyo dawladda halkii salka u ahayd oo ah China iyo Mongolia